madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaalle Maxamed Siyaad Barre iyo wafdiga uu hogaaminayay degmada Boorama waxaa loogu soo dhaweeyay si aan la malayn karayn oo xiisa iyo kalgacal leh iyaga oo si aad ah u sugayay dadweynaha ku dhaqan degmadaasi Boorama wafdiga uu madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed uu hogaaminayo Jaalle Maxamed Siyaad Barre iyaga oo qanaayeen wadada xiriirheeda waxa ka caankanaya iyaguna sidoo kale waxa ay lulayeen calaamada jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya iyo ka xisbiga iyo sawirka madaxweynaha ummadda Soomaaliya Jaalle Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaalle Maxamed Siyaad Barre degmadaasi Boorama markuu yimid intii aanu soo gaadhin magaalada Boorama ayaa halkaasi waxa uu ku gacan qaaday madaxda iyagu degmadaasi Boorama iyo isla markaasi madaxda ciidamada qalabka sida isaga oo hal u gacan qaaday madaxweynaha dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaalle Maxamed Siyaad Barre iyo wafdiga uu hogaaminayo markii ay magaalada Boorama yimaadeen waxa halkaasi ubax qoorta u socday oo heesaha aad u qiirala iyo ku soo dhaweeyay ubaxa kacaanka ee degmadaasi Boorama iyada oo run ahaantii uu madaxweynuhu si aad iyo aad uga helay soo dhaweynta degmadaasi Boorama idinka oo imika daawanaya madaxweynaha ummadda Soomaaliya Jaalle Siyaad oo isagu baabuurkii uu saarnaa ka dhigay markaasina dadweynihii dhex lugaynaya oo isagu gacan qaadaya dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan ka bacdina markaasi isagu u koray baabuur dul furan oo isagu uga gacan haadinayay dadweynaha ku dhaqan degmadaasi Boorama oo wadada xiriiraheeda iyo gudagana madaxweynahana ku soo dhaweynayay eraya aad iyo aad uga muuqato wadaninimo iyo kalgacayl rasuul leh kadib soo dhaweyntaasi la yaabka lahayd ee degmada Boorama madaxweynaha ummadda Soomaaliya Jaalle Maxamed Siyaad Barre intii aanu khudbada halkaas ka jeedin waxa isagu xog waran booqashadii Jabuuti ka soo jeediyay warbixin gaaban wasiirka xanaanada xoolaha Muuse Rabiila Good oo madaxweynaha ku soo dhaweeyay maanta farxad weyna dadweynaha degmada ama hooyada gobolka Awdal waa salaamantii aad ayaan magacayga magaca guddiga aan safarka wada ahayn midka golaha dhexe xisbiga kan golaha wasaaradaha wasiirada iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee aan magacooda sidnada idinkaga mahadnaqaya sidii rabay oo xaadir waliinahay oo qofkii xataa bukeeyo fiidkoodaya oo banaanka ilaada aad nolol cusub u abuur jirtay aad iyo aad baan ugu mahadinaya xaqiiqadii dadkan markaan ka soo filayno degmada Sayra lugaye dadkii oo meel banaana yiri ah iyo Boorama oo aad u xayiisay Allah isku kordhiyo waxaanu la kulannay amana lagu soo dhaweeyey xamaasad wadaniya kacaana sabxataa xalaal xiidashaa iyo markaasna ciidankii ambishaarka qaalaysiin laakiin weeganka markasta waa daafaca wadanka ummadaasaan la soo kulannay
وخم